gabdhaha Soomaalida ee Sacuudiga loo diray markaad eegto dhaqanka lagu xanto dadka Sacuudiyiinta qaar ka mid ah oo Ethiopia xataa ay gabdhahoodii kala soo noqotay maxaa u damaana ah gabdhahaas aad u rarteen Sacuudiga iyo shaqada loo diray iyo wixii gaari kara marka koobaad horta gabdhaha Soomaali waxa Sacuudi Arabiya loo diray gabdha kaliya maaha rag iyo gabdhaba waa isugu jiraan waa shaqaale Soomaaliyeed waa ku qodobka labaad waxay tahay gabdhaha Soomaalida haddaba Sacuudi Arabiya way tagaan Soomaaliya inta ka lugeeyaan oo badda cas ay gudbaan oo Yaman ay ku lugeeyaan oo dhibaato badan ay kala kulmaan ay tagaan Sacuudi Arabiya ayagoon sharci haysanin markaas dib haddana loo soo tarxiilaa ama muddo dheer xabsi ay ku jiraan hadda waxaan ka hadlaynaa waxay tahay heshiis laba dawladood dhaxmaray xafiisyo mas'uul ka ah ilaalada dadkaasi iyo xuquuqdooda ka hadlidooda yaa jira marka dawladda Soomaaliya waxay ka shaqaysay shaqaalihii tahriibka iyo lugooyada dhibaatada ku tagayay in la sharciyeeyo kuwa hadda jooga dalka Sacuudi Arabiya sharci la siiyo kuwa kalena ayagoo sharciyeysan oo ciday u tagayaan in meesha ay ka shaqeynayaan iyo xuquuqda ay leeyihiin la garanayo oo xafiis u qaabilsan safaaradda Soomaaliya oo ka furnaan doono meel ay soo cawdaan ay leeyihiin ay tagi doonaan marka xaaladii hore oo shaqaalaha Soomaalida ee Sacuudi Arabiya joogay ay ku sugnaayeen waa xaalad aad iyo aad uga duwan oo dawladdii ay rool ku leedahay mas'uuliyadeedan ay qaadayso waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed in badan ayaa dacayda laga sameeyay war gabdhuhu iyo dhalinyaradeenna waxa badaha ku guraya soo shaqo la'aan ma aha soo maxaan ku raadahay meel aan laga warqabin ma aha maxay u xuntahay midda dawladdu ay leedahay daba socoto annaga ka warqabno waa la daba socdaa waa la ilaalinayaa xafiisay u soo dacwoota haddii xuquuqdeeda lagu xadgudbay yeelanaysaa يعني dadka Soomaaliya waa dad muslimiina waa dad cilaaqaad fiican la leh dalka Sacuudiga la mid ma aha dalka Sacuudiga aad uga fogo dhaqanka iyo diinta iyo dhinac walba ay ku wada fogyihiin marka arintaasi fursad weeye dalal kale oo muxuu ahay caalam ka tirsan ama khaliij ka tirsan wali waan daba joognaa in shaqaalaha Soomaalida ah fursad la siiyo marka arintii ayadoo la xumeynay ayaa gabdhaha loo fasiray laakiin gabdhaha ma waa shaqaalaha gabdhuhuna waxay ka mid yihiin dadka Soomaalida ee shaqaysanaya rag iyo gabdhahana laguma kala soocayo fursadaha soo baxaya waa la wada siinaya